بسم الله الرحمن الرحيم cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay macro types of conjunctiva mawduuca macnaha qeybaha uu u kala baxo conjunctivaha ayaan uga hadlaynaa marka sababta aan mawduucan macro aan u siinay waxaa waaye example macro waxaa loo isticmaalaa wax walbo weyn micro markay noqotana waxaa loo isticmaalaa wax walbo issue aysan qabanin hadda markaan dhahno micro types of conjunctiva waa marka aan ka hadlayno unugyada uu ka kooban yahay conjunctivaha cellskiisa tissuegiisa iyo wixii la mid ah markaan ka hadlayno histology of conjunctiva waxaan leenahay waa micro types of conjunctiva oo isha caadigu aysan arki karin oo lagu arki karo oo keliya microscope laakiin marka aan rabno inaan ka hadalno qeybaha uu u kala baxo conjunctivaha ee aan indhaheena caadiga ku arki karno ayaan u isticmaalnay macro types of conjunctiva marka mawduuceen marka maanta wuxuu ku saabsan yahay macro typeska of conjunctiva waa qeybaha uu u kala baxo conjunctivaha laakiin aan indhaheena caadiga ku arki karno marka insha Allah tan kale histology-giisa lecture gooni ayaa uga hadlaynaa macnaha micro typeskiisa insha Allah taala haddaba meeqa qeyb loo kala qaybiyaa conjunctivaha waxaa loo kala qaybiyaa saddex qaybood one waa bulbar ama ocular conjunctiva number two waa palpebral conjunctiva number three ama marka qaybta saddexaad waa fornix conjunctiva ama conjunctival fornices waqti qaar aan qoro haddaba aan mid u kala qaadno anigoo sheegayna meesha ku yaalo iyo inta uu si kala baxo ugu horeyn bulbar conjunctiva cashirkeeni hore waxaan ku soo qaadanay ee aan ku qeexinay conjunctivaha meelaha uu xuubkani dahaaro inay tahay iskaleerada iyo qaybta hoose ee baarka isha eyelidka posterior of the eyelid inuu yahay xuub cover gareeyo haddaba qaybta conjunctivaha ee cover gareyso iskaleerada qaybtaas cad ayaa waxaa la yidhahdaa bulbar conjunctiva waa xuubka ku dahaaran qaybtaas cad ee iskaleerada wuxuu noqonaa bulbar conjunctiva bulbar conjunctiva waxaa loo sii kala qaybiyaa laba qaybood wuxuu u sii kala baxaa scleral bulbar conjunctiva iyo limbal bulbar conjunctiva sidaan cashirkeena hore ku soo qaadanay qaybtan cad ee isha waxaa la yidhahdaa sclera qaybtan madowna waxaa la yidhahdaa cornea qaybta cad iyo qaybta madow waxaa u dhaxeeyo junction ama kala qaybiyo marka junctionka kala qaybiyo sclerada iyo corneada ayaa waxaa la yidhahdaa limbus haddaba tookadan waxaa loo kala qaaday sclera bulbar conjunctiva waa conjunctivaha ku dahaaran qaybtan cad ee ka fog limbuska qaybta limbuska u dhow conjunctivahan waxaa loo yaqaanaa limbal bulbar conjunctiva bulbar conjunctiva marka labadaas loo kala qaaday waa qayb sclerada limbuska ka fog iyo qaybta limbuska u dhow qaybta u dhow waxaa la dhahaa limbal bulbar conjunctiva tan ka fogna waxaa la yidhahdaa scleral bulbar conjunctiva qaybta labaad waa palpebral conjunctiva palpebral conjunctiva sidaan cashirkeena hore markaan qeexayno conjunctivaha aan kaga soo hadalnay waa kan qaybta ku dahaaran marka baarka isha la gediyo posterior of the eyelid waa qaybtan number 4 iyo 5 ay ku qorantaa iyo 6 waaye palpebral conjunctivaha marka asagana waxaa loo kala qaadaa ilaa iyo saddex qaybood wuxuu kala yahay orbital palpebral conjunctiva tarsal palpebral conjunctiva iyo marginal palpebral conjunctiva marka waxaa asagana loo kala qaybinayaa sida uu hadba meesha uu ku yaalo ayaa marka midba loogu magac daraa aan idin tuso marka waa kana guduudkan oo dhan waa conjunctivihii guduudkan oo dhan waa conjunctivihi
qaybtan inta waa eyelidki qaybtan kore waa eyelidki meeshaana waa iska leeradi haddaba midkan cover gareynaya qaybta hoose ee eyelidka ayaa la yiraahdaa palpebral conjunctiva waxaa loo kala qaaday marka orbital conjunctiva iyo tarsal conjunctiva iyo marginal conjunctiva orbital conjunctiva waa qaybta u dhow isha dhinaceeda tarsal conjunctiva waa qaybta dhexda ku jirto ee palpebral conjunctiva marginal conjunctiva waa qaybta ugu geeska xigto waa margin waa gees haddaba saddexdaas qayb asagana loo kala qaadaa orbital tarsal iyo marginal waxa ugu dambeeyo fornix conjunctival fornixka waa qaybta u dhaxayso bulbar conjunctivaha iyo palpebral conjunctiva hadda tusaale qaybtan jaalaha oo midabkan jaalaha leh waa bulbar conjunctiva waa qaybta sclerada cover garayso qaybtan midabkan cagaaran lehna waa palpebral conjunctiva waa qaybtan cagaarkan ee eyelidka qaybtiisa hoose cover garayso haddaba qaybtan gaduudan waa conjunctival fornix waa qaybtan gaduudka ee u dhaxayso jaalaha iyo cagaarka ayaa la yiraahdaa conjunctival fornix asaga marka waxaa loo kala qaadaa qayb sare oo la yiraahdo superior fornix conjunctiva qayb hoose oo inferior fornix conjunctiva iyo qayb dhinaca jirto oo la yiraahdo lateral fornix conjunctiva marka buugaag ku soo daro medialka wuu jiraa ama qaybta dhexe laakiin buugaagta intooda badan saddexdan qayb loo kala qaadaa superiorka waa kan kore inferiorkana waa qaybta hoose lateralkana waa tan dhinaca jirto marka fornixka waa balbarka iyo palpebral conjunctivaha kan u dhaxeeyo ayaa la yiraahdaa conjunctival fornix waa kana picturekii again waa sida haddaa idiin sheegay qaybtan gaduudan waaye conjunctival aad u mahadsantihiin I hope inaad wax badan ka faa'iideen